xaqiiqooyinka kubadda cagta waa kuwa been abuur ah balse ah kuwa run ah. Part 2 xidigii hore ee daafaca dhexe kooxda Manchester United iyo xulka England Steve Bruce ayaa hal xil ciyaareed dhaliyay 19 gool xil ciyaareedkii sanadii 1990 iyo 1991. Zlatan Ibrahimovic waxa uu soo ciyaaray 6 kooxood oo ku soo guuleystay tartanka UEFA Champions League balse weligiis kuma uusan guuleysan. Trent Alexander-Arnold ayadiis waxay ahayd saaxiibtii ugu horeysay ee tababarihii hore ee kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson. Kingsley Coman waa 27 jir oo kaliya wuxuuna ku guuleystay 12 horyaal 8 uu la qaaday kooxda Bayern Munich 4 oo min 2 uu la kala qaaday kooxaha PSG iyo Juventus. Robert Carmona waa xidiga ugu da'da weyn ee hadda ciyaara waana 61 sano jir wuxuuna u ciyaaraa daafacan dhexe kooxda heerka afaraad ee Hassel Ungol Alavida wuxuuna sidaas ku galay Guinness World Record isagoo noqday xidiga kubadda cagta ugu muddada dheer. Xulka qaranka Spain ayaa ku guuleystay koobka adduunka ee sanadii 2010 iyagoo dhaliyay kaliya 8 gool. Gary Lineker weligiis ma uusan qaadan kaarka jaalaha iyo midka casaanka ahba muddadii 16 sano ahayd ee uu ku guda jiray xirfadiisa ciyaareed. Koobka kubadda cagta adduunka waxaa la xaday 2 jeer oo kala ah sanadii 1966 iyo sanadkii 1983 laakiinse labadaas jeerba waxaa lagu guuleystay in dib loo soo celiyo. Like muuqaalka sidoo kale share ama adariska inoo taabo mahadsanid.